اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر. اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha qaaliga dhammaantiin saa u wada dhantiin mar kale iyo fiideo cusub iyo walaashan Shama family. soo dhawaada seetiin caafimaadkiina alxamdulilah anaga waa fiicannahay. waa min subax intay subax u tahay subax wanaagsan, intay duhur u tahayna ama barqad u tahayna barqad wanaagsan ayaa idin leeyahay. saa u jeediinba waa min subax ilmiya iskuulka u socdaano marka quraaca rabaa inaa u diyaariyo idinkana niila sheer garayo insha allah. cananaas iyo waxaan soo qaatay saytuunka oo yaryarka iyo orange aan rabaa inaan soo bixiyo hal xabo iga dhacday already waa soo qaadanaya dhib ma lahan. waa min subax ii soo dhawaada gacmo furani saafiya seetihiin shalay fiidinay ma soo dhigin raali naqda xoogaa hergab yara iska jiran fahanteen. maxamed aamus maxamiriis waa meeshaan ku qaylinooyo igu qaata asigana uu sheegaya ma fahanteen. waxay leeyahay hooyada maxay u qaylinoosaa keligeed inta u fadhisaa inaa cod saarayba ma oga. raali naqda codka maraan jaray maxamiriisu waa aabiis u geenaayay codkii ay sheegadaga iska xiray marka saa u jeediin baroodiyaa soo diyaarsaday yoogadka cananaaskii wixii dhan diyaaran ka soo dhigtay. hadda marka waxaan rabaa inaan ugu rido mid kasta weelashiisa. ilmaha mid xal xab la ugu ridayaa waayo ma soo dhammayn karaan, laakiin kuwa rooroon laba xaba uga dhigaya. saa u jeediinba ilmaha ilaah noo barakeeyo, ilaah noo xafido dhammaanteena aamiin yaa rabbi. inta awlaad la-aanna awlaad baariya saalixe allaha siiyo alxamdulilah. anagana ilaah noo barakeeyo caruurta. caruurtaada markaa ka taxdirtid markasta nadaafadooda cuntadooda maasha allah tabaarakallah cadaygooda kaale iska aragniida kuu dhismaysa. marka waxaan igula talinayaa mar walbana codkeyga markasta aan ku celiyaa ilmaha markaa u cadeynaysiin kuwa 3 jirka 4 jirka 5 jirka 6 jirka keligood soo cadaysta hadhihina. waa inaa carabka iska soo hoola aa dhahdiino inaa musqusha la geshiino isku daya insha allah. wixii 10 jir xagga ka asaaba soo cadaysanaya dhib mala, laakiin yaryarka mar walba musqusha la gala u soo cadeeya. ilmaha hadda badanaa ma ogolaanaa in musqusha lala galo oo loo soo cadeeyo, laakiin waa lagu qasban yahay markay iskuulka aadayaan markay daadiska aadayaan. waayo muhiimada u horeysa subax wanaagsan markii la cunuga neeftiisa dad soo gaaraysa waa afka. marka afka waa in si fiican aa uga cadaysiino ka taxdira mar walba markii guriga kuu joogo subaxdii aa soo kaco iyo markuu iskuul aadayay mise daadiska aaday. ana kuwayga hadda daadis ay aadaan iskuul weli lama gaarin way yaryar yihiin saas la ajigeeda xataa subaxdii anaa musqusha la galo cadaygu soo cadeeyo madaxa u sameeyo. kuwa rooroon laakiin ayagaa shaqadooda qabsadaan ma fahanteen. kuwa yaryarka hadda mas-uul iga saaran yihiin marba hadda ayagana 10 jir gaaraan ayagaa shaqadooda qabsanay, laakiin hadda intay yaryar yihiin waa inaa u cadeeyaa labiskooda usoo bixiyaa dharkooda u feereeyaa waayo runtii way yaryihiin tababaraa ku socdo. saa u jeediinba mid kastaba rootigiisa u gelinayaa batar waayo waxaan ku daraayo mid waa batar midna waa yoogadka fadhiso. taas waa yoogadka fadhiso oo roodhiga la gashto waay maasha allah. cadaanka aad ba u jecel yihiin ilmaha cadaanka badana waa loo soo mariyaa. ilmihiina maadaama cadaanka ku dhex jiraan way la qabsadeen ma fahanteen. waa ku qasbantahay marka wax alaale wixii markaas ilmaha ay cunayaan inaa u sameysid oo u babadashid quraacada. marna ukun aa u gelisid marna toona fish aa u gelisid marna yoogadan aa u gelisid batar iyo yoogar iskugu qastid saasaa wanaagsan. karaali naqda maanta codkeyga waa weyn waay maxaa yeelay hergab xuna ay haayo shalay xataa fiidinii ma soo dhigin saas la ajligeed hergabaa la xanuunsanay ma fahanteen. hadda xataa mar walba markaa hadlaayo dhuunta ay jiqjiqeynayso marka ay soo dhawaada. xanuunka waa dembi dhaaf shaydaanaa xanuunsanin alxamdulilah waa inaa dhahnaa caafimaadkana ilaaha haayo xanuunkana ilaaha haayo alxamdulilah. waa ku qanacsannahay wixii ilaahay keenay maadaama hadda xilli oo dabeel iyo roob iyo
lagu jiro xilligii hirgebka waay ma fahanteen ilmaha wada qandho mid hadday fiicnaato mid kale la hirgeb haayo kadib markaa quraacda ilmaha usoo dhameeyey ay baxeen anigayaa gaxbo soo shubtay saa ujeedinba dadka waxaan ahay subaxdii gaxbo cabo dadka kafee iyo kubisheen i raadiy miihi ma fahanteen Soomaaliyan kasoo jeeda aniga wadankii asaluhu irjic calaa asalahu ma fahanteen yaa ayeeyinkeena kasoo jeeda hooyooyinkeena maasha Allah waxaan jeclahay subaxdii hore gaxbo qaraar wax yar malaba dhibac ku siiyay intaas marka waxaan rabaa inaan dhac isku siiyo waa kaas waa soo diyaariyay shamsa waa taasa gaxbadeeda hadda cabeesa iyadana balanay leedahay ilmaha markay kala tuurtay oo waxaan dhahay mid kasta wadadiisa qaaday yaryarkana waa orda waagay ku roroon ayaga baxay anigana gaxbadeeda hadda meeshan ku cabooyaa saa ujeediinba ilaahay ay barakeeyo maadaama hirgab i haysan jabiilka lagu gubaa ma fahanteen waa kaasaa balanaan leeyahay balantaadan waxaa fiican in ilaalisatid waqtigeeda aa ku baxdida wanaagsan waa daldal mooya laakiin codkayga wuu gaaban yahay hadda gadaalaan ka saaraya saa ujeediinba intaan gaxbadan cabaya leen fadhiya kadib waa carir raba ma fahanteen idinkana waa ila cariraysan guriga waa ujeediin si loogu labistay waay laakiin kama gaaray hadda waxaa waa jaakadeeda la isku tuuraayo waa ordaa markaa imaada leen kala tuuraa ma fahanteen soo dhawaada maxmiriiso aabiisa dhac la isku siinaa anigana waxaan ku dhahay jidka cubaya waa ordaya maadaama 2 saac subaxnimo hadda ii tahay 3 saacna la iga rabo balanta waxaa ku qasbanay marka baska inaan isku aadiyo xilligii ay sheegay wadadeeda soo maraayo waayo wadadeeda hoosteeda bas soo maro saa ujeedinba waa soo degtay hadda wadadii haya weli xataa waxaan ku dhahay waaga si fiican uma barinin mugdi waaye saa ujeedinba afteenkaan igu qaqabanayaa wadada ku socda ma ahane mugdi waa kaasa gadaasheeda ka dareemi kartiin kaarkeyga gacanta ku wataa waxaan ku dhahay oo aan ku raaci lahaa tareelka ilaa halaha oo gurigeyga iyo baanahoofka waa lugeynayaa lugta caafimaad leh kadib baanahoof markaa imaaday meeshaana hore soo galay roodhig lagu iibiyo waxaan isdhahay labadaada xab roodhig hore ugu qabso maadaama aan soo quraacanin masaafo dheerna isugeysa ma fahanteen waa kaas 2 xab rootiyan ka soo gatay gacantan ku wataa baanahoofkiya ku dhex jira meesha tareelada u socdaa saa ujeediinba lugtiyaan soo qaaday gurigeyga aa ku socdaa lugtu waa caafimaad mararka qaar hadiiba waqti aa haysatid waxaan kuula talinayaa mar walba inaad socotid ma fahanteen socodka waa caafimaad waa kaasa tareelka waa ii imaaday dalaqan soo dhahay gudihiisa ku jira saa ujeediinba wuu socdaa asagana waa kaasa meeshaana iska fadhiyaa kadib haddana mid kale raacaya ma fahanteen waa ka soo degtay saa ujeediinba waa kaasa wadadii haya haddana yaa wadada tareelada waa kaasa oraxda hadday soo baxaysaa weli si fiican xataa uma soo bixin haddana waxaan raacayaa mid kale insha Allah waa kaasa dadka dhan waa ka soo degteen haddana midkaan aan rabaa inaan raaco jog aan ku dhahay ka sheekeeya hadda Yurub joogtidaan ku dhahay oo balanna leedahay hadda ka soo dib dhacdid aday ku taala dibay ku dhigayaan laakiin waxa la rabaa waqtigaaga inaad ilaalisatid already waa ka soo degtay midkaas aan ka soo degtay saa ujeedin buu iga dhaqaaqay ciao aan leeyahay anigana wadadii aan ku socdaa saa ujeedinba waa kaasa tasbiixda iska wata waa iska tasbiixsan weeyaan faanteen mar walba saasa wanaagsan waqtigaagan inaad ka faa'iidid muhiim waa kaasa hadda waxaan fadhiyaa meeshii aan balanta ku lahaaday waa la igu yaraan 2 saac aan fadhiyaa samri dulqaadna si ilaaho aan ku leeyahay meeshaanida iska fadhiyaa kadib waa soo laabtay guriga imaaday dukaana soo maray niima soo duubin ilmiya ii sheeg adiga waxaan soo gaday bahashan aa ujeediin waa koolo bahashaas kala aa ujeediin biya lagu dhibicsiinaya waxay ku maalaj gareynayaan macnaha waxay ku sabrayaan waxay ku qorqorayaan alaaban aa ujeediin ii sheeg adiga lagu maalaj gareynaya kaas uu sabran yahay midka kale ma sabran marka waxa raba cunuga maskaxdiisa inuu ku shaqeysiyo uu sabro waxana ujeedin mid diyaar ma ahan mid diyaar ma asasle ajligeed marka mid kastaba xabada u soo goday kuwa yaryarka hadii kale waa la isdagaalaya ma fahanteen anaa iskale marka maxaa igeli xabad kastaba marka wax soo gaday sasa u kala qaybiya had strawberry-gan kaas diyaar kan diyaar ma ahan waa ujeedin waxaan dhan mid diyaar ma ahan ayaga marka waxa la rabaa inay maskaxdooda ka shaqeysiyaan oo ku qoraan meeshan ilmahan way ku tababaranayaan intii oo iskuulka gaarin ma fahanteen marba hadii iskuulka gaaran ayagoo maskaxdooda dhisan wax kasta fahmayaan ABC da qori karaan ii sheeg adiga
ilaa lambar 10 ay geen karaan xisaabta xataa ilaa 20 ay geen karaan maasha Allah fasalka labaad ay ku fariisinayaan haddii perfect uu yahay cunugaaga haddii laakiin ever uu yahay fasalka koowaad ay ku hayaan xataa waxaa laga yaabaa inay 2 sano ku fadhiyaa laga yaabaa wax ma fahmayo cunugan wax ma kasaa inay ku dhahaan marka insha Allah gabaray guriga ku dadaal kurbaada joogtid ilmahaada guriga kula dadaal TikTok iyo telefoon iyo xagga iska dhig waxa wax ku taray waa ilmahaaga wixii faa'iideena dhageyso wixii oo qasaarana iska daadi intaas waa iga talo insha Allah waa iga dardaaran ma fahanteen kadib waxa uu soo gaday labadan cambuura u jeediino iyo alaabi hadda aan ii tusaay dukaanka soo maray intaana hore u soo qabtay waayo markii oo dhar maasha Allah uu yaalo oona jabsan yahay mase diskaan uu yahay ani waa jeclay waa ka faa'iideystaa ma fahanteen maadaama anaga aan nahay sheeg adiga family waaweyn haddana waxaa ku fiican mar kastaba ilmahaaga in dhar oo originalna u soo gadid oona raqiis ah waa kaasa maxaa iga halaabay 4 surwaal oo soo gada gabdhaha yaryarka iyo labadaas cambuurka kaala iska arag labis uu yahay hadda waxaa lagu jiraa xilligii oo hims la dhahaa hims alla waa xilligan oo kale rooba da'o dabeelaa socdo qabowgii zaa'idka ma jiro sas la ajligeed dharkaan ay keenaan mar walbaba marka maasha Allah si qofkii kasaaya ama family hore u soo maray waa ka saaxaanshada wayba ku qoran tahay intaana hore ugu soo gaday hooyo hadaan wax la soo aruurnaa Soomaa guriga markii la imaanay wax la'aan lama imaado inta hadaa soo gaarto waa ku mahadsan tahay runtii boqol awaal weynaan kaaga hayaa ma fahantay jazakallah khair fariin Allah nii barakeeyo ilmaha lagu taxdiro nadaafadooda cuntadooda meeshay seexanayaan has dhigan markasta wadan dado hadaa joogtid dareen ku joog dal aan lahayn dareen ku joog ay dhahdaa hooyaday ma fahantay marka alxamdulillah soo dhawaada ilaahay dadis baan ii jeclahay bye bye